haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka galka baarista waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayaga Haaruun Macruuf. tobankii bishii Maarso ee sanadkan waxaa xariga laga jaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Baraawe oo dhismihiisu uu soo socday in muddo ah. waxaa madaxda dowladda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ay u boqoleen magaalada Baraawe halkaas ay ugu dabaaldegeen munaasabadda ay magaaladaasi markii ugu horeysay taariikhdeeda ku yeelatay garoon diyaaradeed. waxay si kalsooni leh ugu dhawaaqeen inay ku baxday 4,300,000 oo dollar. hase yeeshee maalmo kadib farxadda furitaanka garoonka waxaa hadheeyey wararka iyo muuqaalada ka imanaya magaalada Baraawe kuwaasi oo tusinayay dhul ka mida barxadda baabuurta la dhigtay ee garoonka oo diistay kadib markii ay u adkaysan weysay roob culus oo ku da'ay. maamulka magaalada Baraawe iyo hay-adaha maalgeliyey waxay ku adkaysteen in dhulka diisay uusan ka mid ahayn garoonka. fikradaha taasi ka soo horjeedase waxay muujiyeen in marka la eego lacagta ku baxday ay magaaladu u qalantay garoon laami ah oo ka wanaagsan kan ay heshay. haddaba sidee lagu dhisay garoonka? maxay yihiin caqabadaha laga soo maray? lacagta ku baxday ma lagu dhisi karayay garoon ka tayo fiican? yaa iska lahaa go'aanka ah in garoonku uu noqdo mid jay ah? waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. garoonka magaalada Baraawe waxaa maalgelisay hay-adda lagu magacaabo Sanduuqa Xasilinta Soomaaliya ama Somali Stability Fund oo ay hay-ado iyo dowlado deeqda bixiya ku jiraan sida Midowga Yurub, Britain, Netherlands, Norway, Sweden, Denmark iyo Jarmalka. maamulka koonfur galbeed iyaga waxaa loo xil saaray inay keenaan goobtii laga dhisi lahaa garoonkaasi. inkastoo magaalada Baraawe laga xoreeyay ururka Al-Shabaab bishii Sebteembar 2014, haddana maleeshiyaadka Al-Shabaab kama foga magaalada waxayna si joogto ah weeraro gaadmo ah ula beegsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. shirkadda dhismaha iyo maamul goboleedkuba waxay sheegeen in Al-Shabaab ay weeraro joogto ah ku haysay dhismaha garoonka. laakiin caqabadaha amniga waxaa weheliyey kuwa dhinaca juqraafiga ah. Cabdulaahi Aadan Axmed Black waa wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka ee maamul goboleedka koonfur galbeed. waxa uu galka baarista uga warramay sida uu ku bilowday dhismaha garoonka. waxaan xasuustaa 2016 laga soo bilaabo 11 jeer ayaan helicopter ku tegay aniga kula hadlaaye anigoo raadinaynay oo mar walbana dad aqoon u leh arrimaha aeroboorada aan geynay dhulku habboon inaan helno. hawshaasu dhibaato badan baan kala kulannay. qalabkii wax lagu dhisi lahaa sidaan ku geyn lahay muddo dheer ay naga qaadatay. meesha lafteeda oo runtii uleys badan hadday noqon lahayd nimanka nabaddiidka ah oo dagaal badan lagula jiray niinooyin loo dhigaayay 7 kilomitir balaas 1 kilomitir oo airport iyo isu jira ambareesi meesha la yidhaha 8 kilomitir ee meesha magaalada u jirtaa. adiga conflict badan oo aan kala kulannay xilligii aan dhisaynay ayaa waqtiga dib u dhigay. waxaad ka hadashay dhibaato inaad kala kulanteen qalabka iyo sidii loo geyn lahaa wixii lagu dhisayay garoonka. dhibaatadaasna waxay ka imanaysay dhulka iyo meesha la marsiinayo oo amnigu xumaa mise dhinaca badda aad soo marsiinayseen mise ilaalinteeda? bal wax yar iftiimi meeshaas. absolutely labada arrimood. tan ugu horeysa qalabkii loo baahnaa oo wax lagu dhisi lahaa oo xamar yiilay oo qolada kambaniga ay haysteen sida lagu gaarsiin lahaa ayaa dhibaata naga haysatay. sababtay tahay waa xamar iyo Baraawe in loo safro oo jidkaa la maro dhibaato weyn bay ahayd. qolada AMISOM aan la kaashanaynay laakiin way adkaatay in safarka jidka Baraawe iyo xamar isku xiraba in la maraa adkaatay. mar dambe oo intaan hawsha ku dhex jirnay waxaa bilowday in markab xamar wax ka qaadayay markii jidka uu go'ay already oo AMISOM logisticadeeda meesha tegi weysay. waxaa bilowday markab yar oo AMISOM ay adeegsanaysay kaasaa haddana waxyaalaha lagama maarmaanka sida shamiindada oo kale ayay qolada kambanigu ay saaranayeen. labadaa dib way jireen. dib saddexaadaa jiray oo qolada nabaddiidka ah waxay dadaal badan u galeen miinooyin badan ay meesha dhigeen inaan meeshaas aeroboor laga dhigin oo meeshaas aysan caasimad noqon
dagaal aan kala joogsi lahayn ay nagu hayeen laftooda. qodob kale oo muhiim ah oo la isku qabtay ayaa ahaa qaabka loo xulay shirkadda dhisaysa inuu ahaa mid lagala tashaday maamulka koonfur galbeed iyo in kale sida uu sharaxayo guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe oo xilliga uu xilka hayay ay bilaabantay shaqada dhismaha garoonka. Aadan Cumar Madoobe oo haatan ah isku duwaha xiriirka degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose waxa uu ku doodayaa in isaga laga talageliyay xulashada shirkadda dhisaysa garoonka. inkastoo saraakiisha kale oo koonfur galbeed ay aaminsan yihiin inaysan maamulku wax luga ku lahayn nidaamkii lagu soo xulay shirkadda aysanna wax ka ogeyn. horta sidaada markii wax la dhisaayo kambaniyada waxaa la geliyaa wax la yidhaah tartan ayaa la geliyaa 12 kambani ayaa tartan loo soo geliya degmada Baraawe dhisaan qolooyinkaas kambaniga hadda dhisay oo lagu magacaabo Buugaal ayaa ku guuleystay. laakiin su-aashaydu waxay ahayd shirkadda markii la tartansiinayay qaabka loo tartansiinayo xulista sida loo kala reebayo miyaad ka qayb gashay mise adu lukumaad lahayd? maya waan ka qayb galay. Nuur Cali Buugaal maamulaha guud ee shirkadda Buugaal Investment waxa uu sheegay dhinaciisa inuu si furan ku helay qandaraaska dhismaha garoonka. anagu tartanaan galnay maalan dhowr iyo 10 shirkadood oo waaweyn oo qaar international yihiin oo Indonesian iyo Emirates iyo yihiin ayaa tartan la galnay ayaga ka qaadnay. marka qandaraaska yaa idin siiyay idinka? anaga waxaan siiyay qandaraaska Somali Stability Fund. waa gartay laakiin maamulka koonfur galbeed door miyuu ku lahaa inaad qandaraaska heshaan? maya. maamulka magaalada Baraawe ee xilligaas 2017 ama wixii ka horreeyay gacan may ku lahaayeen qandaraaska inaad heshaan? hay-adda maalgelisa iyo dowladda Soomaaliya waxay ku doodeen in dhismaha garoonku uu qayb libax ka qaadanayo dhaqaalaha magaalada iyo inay dhinaca hawada isku furmaan magaalada Baraawe iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya. xubnaha bulshada ee dhaliilaya garoonkan waxay aaminsan yihiin in marka la eego qaabka loo dhisay uusan garoonkani u adkaysan doonin roobab kale. hase yeeshee mas-uuliyiinta dhisay waxay dhinacooda qabaan in garoonka loogu talagalay diyaaradaha xamuulka iyo kuwa rakaabka oo qaadi kara ilaa 100 qof. waxay sidoo kale ku doodayaan in loo dhammaystiray hanaanka biyaha ka moosi lahaa garoonka. waxaa kaloo su'aali ka taagan tahay in garoonka laga dhigi karayay laami xataa qiimuhuba kor ha u kacee. hase yeeshee maamulka gobolka shirkadda dhistay iyo maalgashadayaashuba waxay u muuqatay inay door bidayeen garoon jay ah. Cabdulaahi Aadan Axmed Black waa wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka ee maamul goboleedka koonfur galbeed. mar walba garoonka inuu jay noqday laami lagama fikiraynin sababtoo tahay fanka ay u haayeen markaas way noo sheegeen waxa uu ku filnaa weliba in keliya inta garoonka oo runwayga ay noo sameeyaan ayaa lacagtaas way ku filnay. weliba dalab baahi kala timid oo hadday noqon lahayd siligii hadday noqon lahayd terminaalkii hadday noqon lahayd waxyaalihii kale oo airportka lagama maarmaanka ahaa lacag dan baa lagu daray oo xilligii aniga wasaaradda ka wareegaya ayaa lacag danba lagu daray. lacagta markaa jirtay jaaga keliya in lagu sameeyo ayay ku filnay marka laamina warkiisa maba jirinba. waxay dhinacyadaasi ku doodayaan in jaygu uu yahay kan ugu habboon isla markaana aysan suurtagal noqonin in la saaro laami. taasise waxay ku adkaatay dadka dhaliilsan inay fahmaan fulinta mashruucan. mid ka mid a saraakiisha la socotay dhismaha garoonka waxa uu galka baarista u sheegay in dhismaha dhaba laami ah uu ku kici karay ilaa $9 milyan oo dheeraad ah oo ay la socdaan kharashaadkii qalabka dhismaha lagaga soo qaadi lahaa magaalada Muqdisho. maamulaha guud ee shirkadda Buugaal Investment oo garoonka dhistay Nuur Cali Buugaal ayaan wax ka weydiiyey in marka hore garoonka loogu talagalay jay inuu noqdo iyo in kale.